inantaa inaan 150 geela ku meersado sidoo kale aan arooskeeda ka dhiso halka ugu caansan uguna quruxda badan geeyga Soomaalida ah buurta daalo maadaama ay sida tilmaamta sheegtay in sun loo cabeeyo aan waxaan taaganahay inaan jarka ugu dheer Soomaaliland aan iska tuureeyada la'aanteed waxa garabkayga bidix jooga Mustafa Saciid Ceero oo habeennimadii xalay posti soo dhigay Facebook isla markaana falcelin badan oo kala kulmay postigaasoo uu ku codsanayay inuu jeclaaday isla markaana uu ka helay inan dhawaan soo sheegtay inay rag badan isuna cabeen isla markaana ay mari kari weeday suuqyada inantaasoo ah inan reer Gurceela markii hore Mustafa soo dhaweynaya Mustafa bal hawsha iyo waxa ku kalifay iyo jacaylkaas dardartiisa leh intaas quruxda iyo dareenkeeda ayay ka cabirtay laakiin aniga ma aha mid maanta igu cusub jacaylkan wuxuu ahaa mid muddo badan saameyn badan ku soo yeeshay dareenkayga maadaama ay sida tilmaamta sheegtay in sun loo cabeeyo aan waxaan taaganahay inaan jarka ugu dheer Soomaaliland aan iska tuureeyada la'aanteed horta jacaylku waa dareen ka dhasha aragtida wana boholiyo ku yeesha kalgacaylka iyo waa boholiyo daga qalbiga runtii inantaas quruxdeeda iyo sida loogu qushuucay ay tahay mid soo jiidasho leh aniga waatan hore kugu sheego maanta igu ma cusba laakiin waxaan ballan qaad sameeynaya inantaa inaan 150 geela ku meersado sidoo kale aan arooskeeda ka dhiso halka ugu caansan uguna quruxda badan geeyga Soomaalida ah buurta daalo haddii intaa iyo inka badan ay igu soo xidhan waxaan ahay mid diyaar ah waxaad sheegtay inaad inantaa jacayl qaaday adiga hadii ay dalabaad kale ku yimaadaan xagga hablaha Soomaaliyeed iyada bal ka waran meed ku diidi doontaa mise soo dhaweyn doontaa waxaan labo waa mid iska daa hadii baan kooli adduunka waxa yaala la soo bandhigo kuma doorsanayo quruxda iyo kalgacaylka iyo booliyooga xiisaa iyo haya Samaara Mustafa waxaad soo dhigtay xalay toole posti Facebook isla markaana si aad u qarxay bal ka waran markaad falcelinta faalooyinka laga bixinayo xagga habluhu iyo raggu maxay kala duwanayeen feedback iga soo noqonayay saameyntiisu lahaa waliba ha u badnaadaan xagga dumarka oo 80% aan oran karo inay yihiin maagitaan laakiin anigu hoos ma neegin waayo waxa igala weynaa jacaylka aan sheegtay iyo fariinta ka soo noqonaysa waxaana leeyahay hablaha Soomaaliyeed aad baa mahadsantiin wax kasta oo soo tiraadaan raalli baan ka ahay way maxaa kamid ahaa waxyaabaha ay kugu maageen ama kugu dirayeen habluhu waxay badanaa igu maageen oo igu dirayeen gobolku joogo dalka uu joogo miyuu habla ka waayay intuu jeclaanayo inanta halka joogta ama quruxda caynkaas miyaanu arkeen garbihiisa waxa taagan waxa weena laakiin waxaan leeyahay jacaylku waa mid ma halabo sax haddii aan jeclaaday inanta Gurceel joogta waxay iiga dhigan tahay inay qalbigayga u helo tahay inay agteedana joogto way hablaha waxaad leedahay hablaha fariintan u diray waxa weeyaan aad baad